Bismillahi Rahmaani Rahiim. Kusoo dhawaada warka duhurnimo ee madadaalo cusub. Fadlan haddana ugu cusubtahay subscribe saar mahadsanid. Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si xun u garbaashay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Muuse Biixi Cabdi oo maanta khudbad sanadlaha ka horjeedinaya golaha wakiilada Somaliland ayaa soo hadal qaaday arrimo dhowr ah ay ka mid yihiin arrimaha Soomaaliya. Asigoo ka hadlaya arrimaha Soomaaliya, Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta khudbad sanadlaha ka horjeediyay golaha wakiilada Somaliland ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah asagoo soo hadal qaaday arrimaha Somaliland kala dhexeeya Soomaaliya. Ugu horreyn, madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadiisa diiradda ku saaray xaaladda guud ee Somaliland ayaa si faahfaahsan uga hadlay arrimaha doorashooyinka, dhaqaalaha, amniga iyo horumarka uu gaaray maamulkiisa. Mar uu ka hadlayay arrimaha Soomaaliya, waxa uu sheegay Muuse Biixi in shacabka reer Muqdisho ay yihiin dad u afduuban sidii la rabay laga yeesho, sida uu hadalka u dhigay, asagoo xusay in madaxda talada haysa ay qaadaan tallaabooyin cadaawad ah oo dadka Soomaaliyeed sii kala fogeynaya. Sidoo kale wuxuu sheegay in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xafiiska sii joogo asagoo aan haysan wax sharciyaad ah. Wuxuu yidhi, maanta Muqdisho dowladdii hore waqtigeedii wuu dhammaaday, dowlad cusubna lama dooran, sharcigana uma kordhin, hadda wuu fadhiyaa waana maamulayaa. Sidoo kale, gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono cid walba oo qaadan wayso face mask ama wajih ama sanxirka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Cumar Finish oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu faray in bulshada caasimadda inay u dhago nuglaadaan fariimaha caafimaadka iyo wacyigelinta ee wado wasiiradda caafimaadka. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono ciddii u hoggaansami waysa talooyinka uu soo jeediyay maamulka gobolka Banaadir. Duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Finish ayaa sidoo kale tilmaamay in ciqaab la kulmi doonaan ciddii fuli waysa awaamirta ay soo saarto wasaaradda caafimaadka ee la xiriira cudurka coronaviruska. Xaafadaha iyo degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka socda dadaallo bulshada loogu wacyigelinayo khatarta cudurkan, laguna sheegayo qaabka ugu habboon ee looga hortagi karo. Sidoo kale, maamulka gobolka Banaadir ayaa bulshada aan heli karin agabka looga hortago coronaviruska u qaybiyey face mask iyo galoofisyo, taasoo qayb weyn ka qaadan doonta la dagaalanka faafitaanka cudurka coronavirus. Wixii warar kusoo kordha kala soco madadaalo cusub. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shacabka ugu baaqday inay u hoggaansamaan tallaabooyinka caafimaad ee looga hortagayo faafitaanka cudurka safmarka ee coronavirus xilli cudurka uu kusii laba kacleynaya dalka. Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Fawziyo Abikar Nuur ayaa sheegtay in uu aad u sareeyo heerka isku gudbinta cudurka coronavirus, sidaa darteed ay badatay tirada dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus. Wasiirka oo hadalkan ka jeedisay shir jaraa'id oo wasiiro ka tirsan xukuumadda xilli gaarsiinta ee Muqdisho ku qabteen ayaa intaasi ku dartay in uu muuqdo in nooc cusub oo cudurka coronaviruska uu dalka farabadan ku hayo. Isku gudbinta cudurka aad buu u koreeyaa, welina shaybaar laguma xaqiijin nooca cudurka ee isbedelay ama in uu yahay kii hore ama in kale, laakiin dhakhaatiirta iyo dadka culunta ku takhasusay shaki weyn ugama jiro inuu yahay mid cusub oo ka duwan isku gudbiskiisa iyo dhimashada oo aad u badatay, ayay tiri Wasiir Fawziya.